بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار. أحبتي في الله، waxaanu ku soo jirnay kitaabkeeni suwar min xayaati الصaxaaba ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin. waxaanu soo gaarnay darsiga 22 ee kitaabkeenna. waxaan dhexda kaga jirnay qisadii saxaabigii geesiga ahaa ee baraa binu maalik alansaariy. sheekha marka wuxuu rabaa inuu soo qaato tusaalooyin dadka qaar say u dagaalameen. wuxuu ku yidhi fahaada kani thaabit bnu qays ninka la yidhaahdo weeye, xaamilu liwaa'i alansaari, ansaar calankeedana ximbaarsanaa, yataxanadu waaba isagoo iscarfiyey, uunsimeed ayuu marsaday. uunsiga qofka markuu dhinto loo mariyo. wayatakafanu wuu iskafnay oo kafantii lagu xabaali lahaa buu xirtay. wayaxfiru wuxuu u qotay linafsihi nafsadiisa xufratan god ayuu fil ardi dhulka uga qotay. god buu dhulka ka qotay. fayanzilu wuu galay fiiha, dhulkii buu galay oo godka ahaa, ilaa nisfi saaqayhi, labadiisa dhudhun bartankooda ilaa la gaaro in abuu qoto uu galay. god yaroo dhudhumadiisi bartankooda gaarayo ayuu qotay. kafantii buu xirtay, wuu iscarfiyey, labadii lugood buu godkii la galay. wayabqaa wuu ku baaqi ahaaday godkii thaabitan xaaluu yahay mid sugan fii mowqifihi, mowqifkuu istaagnaa ayuu ku sugnaaday. yujaalidu isagoo dagaalamayo can raayati qowmihi, tolkiisa calankoodina difaacayo oo u dagaalamayo, ilaalinayo. xataa khara ilaa uu dhacay sariican, isagoo dhintay, shahiidan oo weliba shahiiday. xataa khara ilaa uu dhacay sariican, isagoo la legday, dhulku ku dhacay. oo kharada waxaa weye marka uu taagnay uu dagaalamaya, kadib marka qoorta lagu dhuftay dhulku kusoo dhaco. khara uu dhacay sariican, isagoo la waray oo dhulka lagu waray, la legday. shahiidan oo shahiid aho gacanka xaq daran ay dishay. ballantii ilaahay uu la galay ayuu fuliyo, goobtii kama dhaqaaqin. barti buu dagaalamay ilaa lagu bireeyey barti. waa thaabit bnu qays ninka la yidhaahdo. wa haada kana zayd bnu lkhadaab weeye, zaydkiina khadaab ahaa, akhuu cumara bni lkhadaab radia allaahu canhuma. cumar bnu lkhadaab walaalkiisina ah. cumar binu khadaab nin la dhashay oo zayd bnu lkhadaab la dhahayo way kanna. yunaadi wuu dhawaaqayaa fi lmuslimiina, muslimiintii buu ku dhex qaylinayaa oo wuxuu leeyahay ayuha nnaasu dadow, caduu qaniina calaa adraasikum, gowsihiina qaniina, war gowskaa la qaniino. wadribuu garaaca fii caduwikum, cadowgiina garaaca. wamduu socda quduman, horay u socda, gadaalna ha u soo laabanina. cadowga intaad goos dambeedka qaniintaan, naf isgeliya wey meesha la yidhaha, naf isgeliya. goos dambeedka intaad qaniintaan, cadowga ku socda oo garaaca, horeyna ha loo socdo, dib yaan loo soo noqonin. ayuha nnaasu dadow, wallaahi eebbaweynaan ku dhaartay, laa atakalamu hadli maayo bacda haadihi alkalimati, oraahdan aan hadda ku dhawaaqay gadaasheeda, abadan weligay hadli maayo. xataa yuhzama, ilaa la jebiyo, musaylamatu lkadaab, ilaa la jebiyo. oo amise alqa allaha, eebba aan la kulmo, oo fa udliya aan raaraciyo, ilayhi alla xaggiisa aan u geestoon u raaracsado, bixujati, xujadayda. anigu hadalkan hadda aan idin dhahay oo dagaalama, war ka dambeeyon ku hadlayo ma lahan. ilaa ama musaylamo la jebiyo, ama anigoo dagaalamayo diinta difaacay aan dhinto oon shahiidoon ilaahay xujadayda iyo shahiidnimadeeda aan oola tago, anigu mar dambe hadli maayo. uma kara wuu ku rogaal celiyey cala alqowmi, qoomkii gaalada ahaa ee musaylamuu ku rogaal celiyey. famaa zaala ma uusan ka zuulin zayd bnu lkhadaab yuqaatilu, inuu dagaalamayo, xataa qutila, ilaa la dilay uu shahiiday. hadalkii isagaha kadib juuma dhihin, dagaalkii buu galay ilaa uu ku shahiiday. wa haada kana saalimun, saalim weeyo, mowla abi xudayfa, abi xudayfa addoonku xureeye ahaa. yaxmilu wuxuu ximbaarsanaa raayata almuhaajiriina, muhaajiriin calankooda buu ximbaarsanaa. saalim mowla abi xudayfa baa la yidhahdaa. aabbihiisaa la garan waayey, kadibna ninkaas abu xudayfa oo xureeyey baa loogu magac daray. oo aayadda qur-aanka, haddii aad waalidiintooda garanaysaan ugu yeerale, udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah, fain lam taclamuu aabaa'ahum
فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين وكمدة نكال وحلوه يري مركا أبي حذيفة موليس سالم واتقانانا حفاظ القرآن كددك حفظنا وكمدة رج النبي وقوني وتلمامي oo yiri raggaas quraanka laga barto Salim ba kamid aha Abdullah Abbas ba kamid aha ninkii la dhihi jiray muxuu ahaay Ubay ibn Ka'ab ba kamid aha waa taqaanan raggi xufaada quraanka habu kamid aha ninkan iyo Muaad ibn Jabal waa taqaanan ninkan marka Salima wuxuu ximbaarsanaa muhaajiriinta calankoodi fayakhsha way baqeen calayhi dushisa qowmu tulkiisiba waxay oga cabsadeen muhaajiriina laga waday أن يضعف إنه تبردرناضو أو سيتزعزع إنه لقلقته إن حوغا ولول أقله حوغا ويرعب صدو حوغا وحالي رين كان دنكيس إن لغا سو قلان كعبسان عالك فإن لغا بدلو إن كانوا تبردرناضو ودالو أما حوغا ولول اللي وعي قشو ويرعب صدو أيانو كبقينا بدهن فقالوا له حين كدهن إنا أنه مين كقرنين لنخشى وحانو كبقينا أن نؤتى إن لغا إماضا من قبلك دنكاذا إن لغا صوغلون يو العررتون عبسانو كبقينا ويدهن فقال سالم حويري إن أتيتم هدي الذين كغي إماضا من قبل دنكيذا فبئس وحاباس لهذا حامل القرآن قرآن مدحن باري أو حافظ القرآن أيا إنكارو كد عضي أو باس لهذا أكون أنا هذا نين قرآن حنبارسون أنو أهذا أيا أغشر بدن بويري إن دنكيذا بلغا صوغلو بمعنى أنه حافظ القرآن إن نعيد اللي إذن كسوق قلاي واحد كرامة هاوير وأين صفك رجله إن أتيتم هذه اللي إذن كجي ماذا من قبل إذن كيدي جهاد أنا نقول فبئس وحباس لبوير حامل القرآن قرآن من حنبارسن أكون أنا هذا أنا جا أغشر بدن دتك قرآن كحنبارسن أنا أغشر بدن هدي بدن كيدي اللي كسوق قله بمعنى اللي كم سوق قلايو ثم كروا الرجال علي على أعداء الله بعد ويسو كرجال علي كرة رجال علم باسلة وجسن ماله حتى أصيب إلى الله أصيبه شهيدي خلاص أسنواتك ولكن بطولات هؤلاء رجاس أن صوشني جسن مضاضو جميعا دمان توضا تتضاءل ويرانيس أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه marka la barbar dhigo Bara bin Malik geesnimadii uu maalinkaasi iyo wacdaradu muujiyay marka la barbar dhigo raggaanu soo marnay raggaas waxooda wax yar bay noqonayaan tan soo socota ka cajabsan oo ka khatarsan ولكن بطولات هؤلاء رجاس geesnimadoodu jamiican dhamaantooda tatadaa'alu way daciifaysaa way yaraanaysaa أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه إلهي كره لنقضيه وعنهم يغن الله كره لنقض أجمعين إذا الكوض ذلك أرنك وحاوي أن خالد بن الوليد وهو قاميه عيدا كا حين قورت الرعاء وأركي وطيس المعركة دقالك كل الكيس مركو أركي دقالك الدب كيس إنه العي مركو أركي أن خالد بن الوليد حين قورت الرعاء وأركي وطيس المعركة دقالك كل الكيس يحمي إلي كلولان يسمركو أركي ويشتد درنانا يوم مركو أركي دقالك إنه قرحي أو اسكو فرح لسقبحي مركو أركي التفت وحوفيري نك جيسي مركز على صوح حسوستا إلى البراء بن مالك يؤهي خالد بافيري وقال وحوير إليهم يا فتى الأنصار أنصار ويلكو ذي دل يرضى هايو ورقالة ويرر كوقات ورمانت ومالين كاذا دقال كوقات وآد بوير إليهم يا فتى الأنصار أنصار ويلكودي دلنيرada هايو قالada xaqoodi aad weerar ku qaad buu yiri faltafata min isra al-bara ila qawmihi tulki sibu fiiriyay waqala wuxuu yiri ya ma'shar al-ansar makanu kulan keediyay la yufakkiranna yusan ku fikirin ahad minkum qof idin kamida birrujuu'i noqosho ila al-madinati madina wallaato yusan ku fikirin fala madinata lakum ba'da al-yawm ma anta kadib wax madina la dhahma jiraan ما أنت كذب أحمدين اللي يرى مجران إنما هو الله وحده وأن إلهي كلجيس وأن أدق لنا نودي منه ثم الجنة كذبنا عن جندي سجلنا وإما إن قال كان اسكدي عنا وحكد حيملها ما أنت وحير وأحمدين إيه الله بشيء لقوا فكرين إلهي درتي سالور دينتو هلا دقال قالوا دتك ودي رجلينيا ثم حمله ويرري على المشركين قال ذي أيو ويرري
وحملوا إيجانا ويررين مسلمين معه لجركي سبي ويررين ويرر بالقوة قاضي وانبرا وكدح الدسي نكلي راضو خالد بن نكلي راضو براء بن مالك يشق مسلمين وكدح بحي صفك رجلي يشق سقط دلاعنا يا الصفوف تبو كلا جاحي دقالكي قالدي ولقلي صفكي وكلا جاحي ونحقلي قالدي ويعملوا وكشقيسين وكشقين الصيف صيفتي وكشقين في رقاب أعداء الله إيه بوين عذو جيس اللقنت هذه وصيفتي كشقين يو بابين حتى زلزلت إلى لقلقلي أي قريرتي أقدام مسيلمة قمده سي وأصحابه أصحابتي سقمدوه إلى قريرتي دولك لا قريري نلي باحا صادح قلي فلجوا حي آذين ومقنقلين إلى الحديقة بيرتي التي بيرتا عرفت لغو يقاني في التاريخ تاريخ إسلامك بعد ذلك وحي مركا كدن بيي باسم حديقة الموت جيريدا بيرتا دي بالله بحي مقعاسي مركي دنبا قالت بيرتي جيريدا يا الله بحي وحي مالك اسكدن بيي ماشاس اسكو أرورسدين سببت اللوغو بحي مقعاس جيريدا وحيهد لكثرة من قتل فيها دادك اللوغو لحد لي بيرتا أياد بدنا في ذلك اليوم مالكاس sidoo noo keeni doono ilaa 20 kun baa lagu dilay oo gaala 20 kun oo ruux meel lagu dilay marka waa beer malakul mawd way waa beer geeri beertii isku arursadeen musaylama ciidankiis markuu ninkani si adag oo la dagaalamay kaanad waxay ahayd xadiiqatul mawt geerida beerteedu haadihi oo tanna waa midaan hadda ka sheekaynayne raxbatal arjaa'i dhinacyadeedu mid waasac yihiin bay ahayd سامقة الجدران الدرب جاذن وديره دربية دير باكورك سنة فأغلق وصاحري فأغلق هذه اللام كالكر ومجول وعلقوا صاحري مسيلمة إيو والآلاف المؤلفة كمنانك كن إلا سكاني ومن جندي عيدا كيسا عليهم دوشو دي بالغو حري أبوابها الباب دي بالغو صاحري أما فأغلق وحري مسيلمة مستمر لقدر والآلاف المؤلفة ويحرين ومن جندي عيدا كيسا كمد عليهم دشوضة أبوابها الباب دي بيسكو حرين بيرت انتي كو عراضين أي الباب دي سو حرين وتحسنوا وحي كدو في سياشين بعالي جدرانها دربي جيدي الديراء أي كدو في سياشين وجعلوا وحينا قد قلن دو فيس بكاركتروا كوكا بدن بالغوضة وجعلوا وحي قد قلن يمطرون إلى الروب وقد قيان مسلمين تبنان كتشوغي بنبالهم اللي ببكوضة أي الروب وقد قيان من داخلها قدهن يكسو قمهيان انت بارتي اسكو حرين أي بارتي الباب كيدي قفوشين أي مسلمين تبنان كتشوغي اللي ببك روب وقصو قيان وفتتساقضوا ويصوهوا بنيسا عليهم مسلمين تدوشوضة اللي ببكي باكو صوهوا بنيو تساقط المطر سيد الروب كدبعيس يوصو داتا سيد الروب كي اللي ببكو وصو دادانيان مسلمين تبنان كتشوغي مسلمين الليب كي جمانا مقارا دربقا سور ريبايو مشكلة دعضي عند ذلك مركا أكتيضو دباتدا سيد عضي تقدم وهرمري مغوار المسلمين تقيسي قودي يهليي قودي الباسلو اللي بحاها البراء بن مالك أيا هرمري إلا المركا يهوش أتكاتو رقو مركا سوك لبحا صومالي وحي تري رقو مقعا يمكتا موقالك أمبوكسميها مقعا وكسميها هبل ولا قسميها رقو موقالك ولا قسميها وحا حقا تاقل وانين بالدي مكتنا ويكسميهين ومركا للدلاي أمبقولك ولا قادن وحي انتاس كسواري رقو وحاوي كافي كلا ديريوي ولا كلا قدرسيها نكرا صوب حيو اللي باحا ننكر ميتك حوق بدنا وقال وحوري يا قوم كيو ضعوني إيديغا على ترس قاشان إيديغا وارفعوا الترس ترسيغانا كرو قادا على الرماح ورمها كرو قادا ثم اقذفوني يقو قمع ويقو طورا إلى الحديقة بيرت قده دي ردا قريبا ميلو دو يقو ردا من بابها الباب كذا فإما أن استشهد إن لأي شهيديون غيريون شهيدو وإما أن أفتح لكم الباب إما إن الباب كذين فرو وحويري ترسيغا قاشان كبال كانوا حالي هذا والس عمالاي ملتري لك حانتي حليدا بنانبحي وحو جري استعمال سير ريبان كاسا جري واقاسو مقار كسميسان مقار كان قاشان كود اسكو دفاعدان كاس دولكا ليديغو أنيغانا هالا إسارو كدبنا ورمها هاللغو قادو
derbigan dheer ha liga tuuro beerta gudaheeda ha lagu rido ilbaabka meel u dhowna ha liga tuuro kadibna ilbaabka inaan idin furood ku daalataan iyo inaan shahiido labadaas bay mid noqonaysaa raggan si kale la saga reebay malaha waanu baaba'nay wiil yaa qowmi dacuuni idhiga ama dacuuni idhiga anigaba isaara calaa tursin gaashaan dushiisa aniga isaara warfacu tursa gaashaankana kor u qaada cala rimaaxi warmahana ku qaada ilaan gacan lama gaaro derbigu waa dheer yahay uma qdifuunii igu tuura ila alxadiiqati beertay ku jireen malakulmowdka ahayd igu tuura qariiban min baabiha ilbaabkeeda meel u dhow fa imaa an ustashhada inaan shahiido wa imaa an aftaxa lakum lbaab inaan ilbaabka idiin furo mid unbay noqon doontaa wa fii lamxi lbarsari ilbiriqsigiiba jalasa albaraa binu maalik wuxuu ku fariistay calaa tursin gaashaan buu ku fariistay faqad kaana wuxuu ahaa ninkani da'iila aljismi jismigiisa miduu naxiif yahay naxiilahu caatana uu yahay jirkiisu mid jir yar oo gaaban oo haddana tabar daran oo naxiif ah oo caata ah hore baan usoo marnay haddee geesinimadu kuma xirno laf weyn imisaa wax qolof weynood aragteen oo muxuu ahaaye ciyaalka ka cararay warafacatu waxaa kor u qaaday gaashaankii casharaatu rimaaxi kumanaan iyo tobnaan warmo ayaa kor u qaaday fa alqatu warmihii ninkii waxay ku tuureen gaashaanka ku jiray fii xadiiqati lmowti geerida beerteedii baa lagu riday bayna alaalaafi almu'alafa kumanaankii kun ee la soo aruuriyey oo min jundi musaylamat lkadaab ciidankiisii ah ayaa lagu dhex tuuray kadibna meeshaasay qisada nooga sii socon doontaa hada wabilaahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh